السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaad wadayaal waa Kabtan Cabays halkan aad igala socotaan waa isla Kabtan Cabays waxa maalmihi la soo dhaafay baraha bulshada aad u haysta niman ogaadeenah oo lagu afduubtay Hargeysa maamulka Soomaaliland ee Muuse Juudan imikana wuxuu u rogay baash dhankan iyo reerka ogaadeenaha ayuu baash ku laba gadiyay haddana waxa xabsiga ugu jira laba nin oo aqoon-yahan oo dhalinyaro ah oo isagoo hadda laba toddobaad dhow meesha ku xiran baa la yiraahdo un afduuban meel alla meel ku xiran yahay aan war lahayn Cabdiraxmaan Saal Yuusuf ay nagayo isna labadaba airport-ka laga afduubtay yaa maamulka Soomaaliland musabixiya oo afduuban awal siyaasiyiinta iyo nimanka ay dadka ay wariyaasha baraha bulshada ka hadlo baanu yaras lahayn way tahay iminkana waxaa loo soo dhigtay waa isir beegsi cid kasta oo ogaadeen ah ama daarooda ka soo tagay iminka cid kasta oo ogaadeen ah maalin dhaxas kuwa lagu dilay haddana bal dadkii meesha ku dhashay ogaadeenka ee Hargeysa ku dhashay ninkan bal la daawada iyo ubadkiisa dhibaatada haysata in yar bal la yarda aniga iyo ubadkayga yar markii uu la ergida aniga 40 ciyaal la soo baxsaday caawa meelan geeyay ma hayo waxa dhibaatadaas oo dhan markii aan baaray aan ku ogaaday in cid aan ahay aniga la ii eersanayo waxaan ahay anigu nin ogaadeen aan ahay hooyaday waa Ciise Muuse xaaskaygu waa habar jeclo waa reer daahir iyaga ay cunsuriyeeyay iyaga sida ay galay iyaga igu yiri waxba kuma hayno saacada laga bilaabo ubadkaygii saddexna saldhiga dhaxay ku xiran yihiin iyo hooyadood iyo ayidood wax loo xidhay haba yaraatay ma garanayo waxaan ummadda kaga duwanahay oo maanta ummadda la iga dhex saaranahay garan maayo oo qabiilkayga ahayn ilmaha yare wuxuu igu yiri aabo goorman guurina bigu yiri kelmadii aan ka joogi kari waayay shalay ilaa daraad wuxuu ilaa aabo dadku waa ku nooga wada guuray meesha goorman guurina bigu yiri waxaan ugu jawaabo waan garan waayay ilmaha yar qabyaalada uga sheekayn karo ilmaha yar Ciise Muuse ma yaqaan ilmaha yar habar jeclo ma yaqaan ilmaha yar ogaadeen ma yaqaan caawa meel aan u hoydo ma hayo waxaan kala baaq u diranayaa reerka aniga aan dartood u dhintay ee dartood la igu cunsuriyeeyay meel kasto ay joogaan tolkay meel ay joogaba caawa ubadka yar hooy bay u baahan yihiin ubadka yar hooy bay u baahan yihiin toos iyo ogaadeen baa tahay anigu Hargeysa ku dhashay kaarkayga dhalashada waa ka nin Hargeysa ku dhashay baan ahay Hargeysa ku koray Hargeysa ku wax bartay meesha aan anigu meel kale taga ma garanayo ogaadeen gala Hargeysa Hargeysa tad amar qaadanaysaan Hargeysa hala galo meeshan wax ka soo socda ma jireen Hargeysa hala galo oo leydka iyo biyaha iyo wax kasta ba laga goosto musabix iyo maamulkiisa wax kasta laga goosto meeshan wax kala ka soo socda ogaadeen oo hadda xataa dagaalka gali lahaydeen idinkoon dagaalka galin oo SSC dagaalkeedii aan galin idinku ayaa la idinku haystay macnaha la idinku eedeynay in dagaalka qayb ka tihiin idinkoon galin oo dagaalkii galin naruureedii ahaan lahayd oo macnaha dadka hadda sida loo galiyo maynaan mataqaana waxba ayna ka soo qaadeenba oo waxaan dhihi lahayn waxaynu nahay dad dagaalamay oo SSC u hiliyay oo halka waxaan galabeen dhihi lahayn halkaas laga dakareenayo hadda laakiin waad aragtaan wax meesha ka socdo waa istirbeegsi meesha wax ka socda gala Hargeysa dad amar qaadanaysaan gala meesha haddii kale dadkaan u badan nahay waxaan sidan nahay 8 milyan baan nahay meeshan ila fadhiya nacaladu haydo ku taalle Hargeysa wax yar bay idin jirtaa wax yar bay idin jirtaa gabigeedu wanaag kuma qaadanayso 2 saacadood gabigeedu kuma qaadanayso gala Hargeysa waxa meesha ka jiray maamulkan xunka ee fadhiidka Mustafa Cagshar meesha ka jirana Mustafa Cagshar waxaan u maleynayaa inuu qorshahan inuu hadda wax ka og yahayba uu ka warqabaa uu og yahay dhalinyarada aqoon-yahanka iyo suxufiyiinta ee qurba joogta waliba ay meesha lagu xidhay uu og yahay uu ka warqabaa ilaa hadda wax ay ka hadleen cid ay mataqaana wax ka dheentona ma jirto cid ka hadli lahayd ee arrinkan ka hadli lahayd ee musabixi kala hadli lahayd ee hawshan gali lahayd waayo cid hawshan gali lahayd ee muwaadiniinta u dhashay deegaanka Soomaalida ka hadli lahayd ee arrintan wax ka bedeli lahayd waa Mustafa Cagshar iyo maamulkiisa ilaa hadda kama aysan hadlin cid ka hadashay ilaa hadda ma jirto wakaas dadkii meesha deganaa la qaxinayo kuwa lagu dilay oo dhintay oo la aasay oo ognahay maalmo dhaxaas lagu dilay waa kuwa ku joogay meesha ku dhashay ee ku carruur dhalay ee gabdhahoodii qabay nasab maaha waxaan meesha joogay oo gun dhashay weeyane xagee lagu arkay nin gabadh qaba ama darada soo dago ama 20 sano deganaadeen nin gabadh qaba oo wax laga sheegayo ama la eryanayo ama la dilayo ama la barakicinayo xagee lagu arkay
waxa ooy halka idinka muuqdo aragtaan waa ubadkii yanaa ee abtiga u ahayn wey meeshan marka waxaan nasab maaha gun dhashay weeye waxaan xabad ahayn ma yaqaana wallahi waxaan xabad ahayn ma yaqaana musabix awal baa hore loo sheegay ninkanu luuqadda uu wax ku fahmo keliyata waa xabad iyo dagaal weeyaan gala hargeysa haddii kale halkaasaa laydinku dulaysto bartaasaa laydinku dulaysto halkaas mataqaanaa ku baaysaan oo maalin walba midyahana loogu soo gudbinayaa ama nin suxufi awriyo la xidhay ama nin aqoon-yahana meesha lagu xidhay ama nin qurbajoog oo airboodka laga afduubtay ilaa hadda meel allaa meelay ku xidhan yihiin iyo meelay ku jiraan toon ciidma sheegayso cid sheegi kartaa ma jirto eheladii baa loo diiday inay tagaan faamilkii baa loo diiday cid u tagtay ma jirto meel loogu tagayo ma jirto waa lala aya ilaa hadda musabixi u afdumin in la dilay xataa war looma hayo wa kuwana hoygoodii meesha kuwii ku dhalay ee ku aqliyaystay ee ku koray ee gabdhaha ka qabayna waa kuwaa sidaa loo gelayay wax kale un hadda intaa idinsi dhaafinaya ma jirto haddaad wax maqlaysaan gala hargeysa ogaadeen oo meesha waxa ka jira hala soo taabto haddii kale maalin kasta dee misaha lidin dulaysta haddee dadkaan u badannahay iyo sidana nahay allow yaa maanta ogaadeen dhexdiisa yaa wax yar yaasaa uga dhaqaajiya madaxa aad isla gashaan markabe madaxa isla geli haddii in yar qof ogaadeen oo kale saa wax ugu fiiqo waa kuwa iyagiina saas loogu dulaysanay meesha ogaadeen badannahay sidaan badannahay dadkaan u badan oo 8 milyan ana ka caayina wakaasi dadkiina meesha lagu dulaysanaya la baasanaya wax ka qabta haddaad dadtiin ama dadka aad fura badan tihiin halkaas aan wax ka arko 24 saac soo socota halkaas aan wax ka arko haddii kale meeshan ogaadeen baan nahay dambe toon iyo wax dambe ood ku kaftantaan wallahi ma jiri doonto kaftanku wuu idinka xidhan yahay wallahi ama maamulo haw ama shacba haw ama aqoon-yahan haw kaftanku wuu idinka xidhan yahay saacadda laga bilaabo idinka xidhan yahay kaftanku inta dadkiini saas musabixi halka uu galaya muuse judaan oo wuxuu yahay noognahay 2 saacadoodna idin jira kaftanku wuu idinka xidhan yahay aad iyo aad baad mahadsantiid sii sheer gara fiidiyowga hadduu idin soo gaadho qof kasta oo ogaadeen bad jooga ugu gey